الرحمن الرحيم waxaynu joognaa site-kii ama saaka waxaan kormeer hawleed ku nimi oo aanu ku eegayno mashaariicaha ka socday gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera halkan imika aanu joognaa waxa weeye waa dhismihii loo dhisayay hay'adda quality control-ka ee qaranka waa laabkii qaranka kaasoo uu dhagax dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa halkan ku sugan oo jooga injineerkii ay u soo dirtay wasaaraddu oo Maxamuud oo ula soconaya si dhow oo si kasta oo waxa weeye waxa la wixii ku qoraa BOQ-yada iyo maxay hay'adee iyo wixii laga saxay ee lagu heshiiyay contractor-kii ku guuleystay maxay dhismaha marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo maxay hay'adee dhismo qurux badan oo fiican oo tayo leh oo waxaan halkan ku boorinayaa injineer Maxamuud inuu ilaaliyo tayada dhismahaas waayo tayada haddii hagaagto waxa hagaagay wixii qaranka loo dhisayay haddii xumaato dhismaha tayadiisuna waxa xumaanaya wixii qaranka loo dhisayay waxa kale oo ay ka imanaysaa wasaaradda hawlaha guud oo runtii maadaama aanu nahay hay'adda dawladeed ee u xil saaran ilaalinta tayada dhismaha marka insha Allah waxaan rajaynayaa inuu ku dhamaado guul